Tilmaane Production waa tulkiina ee ku toolnaada fadlan like subscribe share haka bakhaylina mahadsanidin salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh baad ku xiran janaalka Tilmaane Production iyo kuwa ku soo xirmi doonaba saaxiibayaal waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada waxaan idin wada qiso aad u murugo badan aadna u naxdin badan oo aan rajeynay in badan idin ka mid ah idinka inaad la yaabi doontaan qisadan oo aad ka heli doontaan haddii qisooyinkan aan soo tabin ama qisadan qisooyinka la mid ah sidaan u soo badino waxaan ka codsanay inaad la gareyso si u gaaraan asxaab badan oo adigoo sidoo kale u wanaagsan mahadsanidin qiso murugo leh waa gabar ku barbaartay nolol wanaagsan waxa ay leedahay waxa aan bartay wiil aad u qurux badan oo wax walba ay dumarka jecel yihiin buuxiyay wiilkii aad ayaan u jeclaaday waxaan u qaaday jecel xad dhaaf ah heer waxa aan gaaray aan ka jeclaado waalidkayga iyo walaalahayga wiilkii waan wada hadalnay waxaan u bandhigay jaceylkaygii waanu iga aqbalay waxa aan wada soconay muddo badan taleefanka waan ku wada xiriiri jirnay marna waan kulmi jirnay marna waa wada kulmaynay wiilkii waxuu mar walba idhahayay qoyskiina waan kaa soo doonanayaa hase ahaatee markaa awood uma lahayn oo waxa uu ka soo jeeday qoys ballaaran waxaa la dhashay gabdho badan oo mar hore uu ka tegey tareenkii guurka wiilkii muddo aan wada soconnay kulankeenni aad ayuu u batay waxa uu iigu yeedhi jiray xaaskayga anigana waxaan ku odhan jiray oo aan dhihi jiray ammaan ugu yeedhi jiray ninkayga oo markaa waxa aan rajaynayay inuu noqdo ninkayga mustaqbalka ah waxa aan ku dhacnay wax diinteenna iyo dhaqankeenna khilaafsan muddo kadib caloosheeda ayaan wax ka dareemay aad ayaan u cabsaday saaxiibkay ayaan u wacay waana aan u sheegay isaguna waa uu yaabay subaxii waxaan isku raacnay dakhtar baaris kadib waxaa la ii sheegay in aan uur leeyahay oo isbuuc ah aad ayaan u naxay waxa aan ka dhacay istaaggii wiilkiina sidoo kale waa uu naxay gurigayga ayaan ku soo laabtay anigii oo lugaha jeedila cuntadiina waan ka go'ay mar walba wiilkii ayaan wacaa isagiina waxa uu leeyahay dhib ma lahan ceebtu waan asturaynaa cid ayaan kaa soo doonanayaa wax ka rumoobayna ma lahan markii dambe ayaan ku dhahay talo keen inta aanay caloosheeda weynaanin oo waalidkayga aysan i arkin waa inaad talo keentaa waxa uu igu yidhi dhib ma lahan soo wada qof aad ku kalsoon tahay waxaan tegaynaa isbitaalka waana lagaa soo xaaqayaa waxa aan soo watay gabar aan deris ahayn isbitaalkii ayaan tagnay dabardhabar ayaa la ii seexiyey waxaan eegayey iyada oo qayb jidhkayga ka mid ah la soo goygoynayo oo bannaanka loo soo tuurayo alla shallaato badanaa maan marka hore joogo oo hantideeda ilaashado ay gabadhii ku calaacashay markii aan bannaanka u soo baxnay gabadhii waan iska dirnay guriga aad ayaan ku idhi aniga iyo wiilkii ayaa isku soo harnay waa markaas ay haddana musiibo weyn dhacday waxaa markaas dhacay musiibo tii hore ka weyn oo talo maxay tahay aadaa umahadsantihiin qaybta labaad oon soo dedejinaynaa waxaan rajaynaya inaad qaybta labaad la soco doontaan laagareeya haddaad ka hesha qisada si qaybta labaad aysan kuu dhaafin mahadsanidin